بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamuud warsame maxamuud cigaal baleeyada aakhiraan ku magac dheerahay waxaan deganahay magaalada Gaalkacyo waxa la iga dhacay gabar dhagala oo anigu aan dhalay oo la yiraahdo Faadimo Maxamuud Warsame waxaana iga dhacay dad aan u maleynayay inay yihiin human traffic dadka gata inay Gaalkacyo joogan oo kula meeraysanayaan wali kula dhuumanayaan iyo inay xamar ka dajiyeen ma kala garanayo maamulada Puntland Galmudug Hirshabeelle federaalka booliska Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada Somaliland nabad sugidda cid kasta oo afka Soomaaliga ku hadasha maamulkay doonto ha noqoto taytalkay doonaan ha noqoto culumada haweenka dhalinyarada muslimiinta dhamaanteed waxaan ka codsanayaa gabadha in la ii qabto meel allaala iyo meeshii lagu arko haday airport tahay haday control tahay haday magaalo dhexdeed tahay haday immigration tahay haday CID tahay meel allaala iyo meeshii lagu arko in gabadha la ii qabto aniga tigidka waa ii go'an yahay xamar baan ka degayaa waan raadsanayaa meel kasto aan mari karan waan marayaa meel kasto aan ka hadli karana waan ka hadlayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan uga baahanahay garab in la ii gurmado gabadha la ila raadiyo gabar telefoon isticmaalaysa maaha aniga waxaan joogay Garoowe baan ka soo baxay shalay subax islaanta loo yimid waxa la yiri islaan habar yarteeda la tusayaa gabadha walaalkeed nin ah gabadha ana dhalay ana haystay dib ma jirin gurigeyga joogtay wax la iga ogeysiiyayna ma jirto markaan midna waxaan maqlay xamar bay ka degtay xamar baa laga dajiyay waxaan aaminsanahay inay wali Gaalkacyo ku jiraan way joogan away gabadha hadda koor baa la kacaystay way kala dhumeen Galmudug bay qabatay dad reer Galmudug qabtay waana loo soo sheegay Facebook-yada la dhigay waan ogaanay habeenkii halka ku bariday subaxina waan doonay waan soo helay mar labaad weeye oo kicdinkii labaad weeye oo hadda shalay subax la qaato gabar telefoon ku hadlaysa maaha gabar dadkoo dhan wada af garanaya maaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta gabadha in la ii qabto meel allaala iyo meeshii lagu arko la iguna simo astaameeda gabadha waa gabar laf yar waa gabar dhowr iyo 20 jira laakiin u muuqata ilmo yar inay tahay oo bar yar weey waa dhagool gabadhaas midabkeedu waa maariin ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa gabadha in la ii qabto cid noocay doonaan Galmudug reer Galmudug qabtay waana loo soo sheegay Facebook-yada la dhigay waan ogaanay habeenkii halka ku bariday subaxina waan doonay waan soo helay mar labaad weeye oo kicdinkii labaad weeye oo hadda shalay subax la qaato gabar telefoon ku hadlaysa maaha gabar dadkoo dhan wada af garanaya maaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta gabadha in la ii qabto meel allaala iyo meeshii lagu arko la iguna simo astaameeda gabadha waa gabar laf yar waa gabar dhowr iyo 20 jira laakiin u muuqata ilmo yar inay tahay oo bar yar weey waa dhagool gabadhaas midabkeedu waa maariin ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa gabadha in la ii qabto cid noocay doonaan Galmudug ha ahaatee Hirshabeelle ha ahaato Koonfur Galbeed ha ahaatee Jubbaland ha ahaadeen Somaliland ha ahaadeen Puntland cid allaala cid afka Soomaaliga ku hadasho oo muslina gabadha in la ii qabto oo gacan la siiyaan ka codsanaya telefoonkaygu waa 07605138 waa 07605138 meel kasta goob kasta aan joogo cidda ii qabata وانا ادعينا وانا ugu imaanaya بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamuud warsame maxamuud cigaal baleeyada aakhiraan ku magac dheerahay waxaan deganahay magaalada Gaalkacyo waxa la iga dhacay gabar dhagala oo anigu aan dhalay oo la yiraahdo Faadimo Maxamuud Warsame waxaana iga dhacay dad aan u maleynayay inay yihiin human traffic dadka gata inay Gaalkacyo joogan oo kula meeraysanayaan wali kula dhuumanayaan iyo inay xamar ka dajiyeen ma kala garanayo maamulada Puntland Galmudug Hirshabeelle federaalka
booliska Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada Somaliland nabad sugidda cid kasta oo afka Soomaaliga ku hadasha maamulkay doonto ha noqoto taytalkay doonaan ha noqoto culumada haweenka dhalinyarada muslimiinta dhamaanteed waxaan ka codsanayaa gabadha in la ii qabto meel allaala iyo meeshii lagu arko hadday aeroport tahay hadday control tahay hadday magaalo dhexdeed tahay hadday immigration tahay hadday CID tahay meel allaala iyo meeshii lagu arko in gabadha la ii qabto aniga tigidka waa ii go'an yahay xamar baan ka degayaa waan raadsanayaa meel kasto aan mari karan waan marayaa meel kasto aan ka hadli karana waan ka hadlayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan uga baahanahay garab in la ii gurmado gabadha la ila raadiyo gabar telefoon isticmaalaysa maaha aniga waxaan joogay Garoowe baan ka soo baxay shalay subax islaanta loo yimid waxa la yiri islaan habar yarteeda la tusayaa gabadha walaalkeed nin ah gabadha ana dhalay ana haystay dib ma jirin gurigeygay joogtay wax la iga ogeysiiyayna ma jirto markaan imidna waxaan maqlay xamar bay ka degtay xamar baa laga dajiyay waxaanan aaminsanahay inay wali gaalkacyo ku jiraan way joogaan way gabadha hadda koor baa la kaxaystay way kala dhumeen galmudug bay qabatay dad reer galmudug ah qabtay waana loo soo sheegay Facebook-yada la dhigay waan ogaanay habeenkii halka ku bariday subaxina waan doonay waan soo helnay mar labaad weeye oo kicdinkii labaad weeye oo hadda shalay subax la qaato gabar telefoon ku hadlaysa maaha gabar dadkoo dhan wada af garanaya maaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta gabadha in la ii qabto meel allaala iyo meeshii lagu arko la iguna simo astaameeda gabadha waa gabar laf yar waa gabar dhowr iyo 20 jir laakiin u muuqata ilmo yar inay tahay oo bar yar weey waa dhagool gabadhaas midabkeedu waa maariin ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa gabadha in la ii qabto cid noocay doonaan galmudug ha ahaatee Hirshabelle ha ahaato Koonfur Galbeed ha ahaatee Jubbaland ha ahaadeen Somaliland ha ahaadeen Puntland cid allaala cid afka Soomaaliga ku hadasho oo muslina gabadha in la ii qabto oo gacan laysiyaan ka codsanaya telefoonkaygu waa 07605138 waa 07605138 meel kasta goob kasta aan joogo cidda ii qabata waana u ducaynaya waana ugu imaanaya dib ma jirin gurigeygay joogtay wax la iga ogeysiiyayna ma jirto markaan imidna waxaan maqlay xamar bay ka degtay xamar baa laga dajiyay waxaanan aaminsanahay inay wali gaalkacyo ku jiraan way joogaan way gabadha hadda koor baa la kaxaystay way kala dhumeen galmudug bay qabatay dad reer galmudug ah qabtay waana loo soo sheegay Facebook-yada la dhigay waan ogaanay habeenkii halka ku bariday subaxina waan doonay waan soo helnay mar labaad weeye oo kicdinkii labaad weeye oo hadda shalay subax la qaato gabar telefoon ku hadlaysa maaha gabar dadkoo dhan wada af garanaya maaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta gabadha in la ii qabto meel allaala iyo meeshii lagu arko la iguna simo astaameeda gabadha waa gabar laf yar waa gabar dhowr iyo 20 jir laakiin u muuqata ilmo yar inay tahay oo bar yar weey waa dhagool